saaka waad ogeedeyno komishanka isku yeedhay saddexda xisbi qaran hoggaanadooda sarwaliba saddexda gudoomiye iyo xubnihi kale sarsare axsaabtuba way la socdeen markaa nuxurka ujeedka la isku yimid waxay ahayd maadaama 28 bisha aynu ognahay inay doorashadu inoo mudaysan tahay in badanna 16 bishii January 2016 kiina ay bilaabantay diiwaangelintii oo muxuu ahaayay oo muddo badan soo socotay iyaduna ay noo bilaabantay isla markaana hadda uu commission ku jiro shaqadiisii iyo operationkii de muxuu ahaayay khuseeyay muxuu ahaayay voter registrationkii dhameystirkiisii iyo diyaar garowga doorashadaba halkii ay wax mariyeen bay runtii naga brief gareynayeen oo markaa warbixin ka siinayeen axsaabta qaranka iyo runtii muxuu ahaayay de kulamo badan oo ay soo taxnaa oo ku saabsanaa sidii magaranaysa de diyaar garowga loo sameyn lahaa ay runtii uu daba taagnaa kulankan maanta waxaanu daba taagnaa kulankii hore gudoomiyaasha iyo isku yimaadeen commissionku bishan December dhacday ayuuna kulankani runtii 7 December dhacday buu daba taagnaa marka runtii commissionku waxay soo bandhigeen warbixin dheer oo taabanaysa muxuu ahaayay halkii ay wax u marayaan waxay noo sheegeen in ay muxuu ahaayay hadda ay ku jireen daabacadii kaararka isla markaana ay u harsan tahay uun muxuu ahaayay qaybintii kaararka sidoo kalena ay u diyaar garoobeen doorashada xilligii ay dhici lahaydna ay u diyaar garoobeen ay u diyaar yihiin isla markaana waxay runtii ay soo bandhigeen xaalad adag oo runtii taabanaysa dadkii kaararka qaatay isdiiwaan geliyay oo runtii de duruufta taaganayno arkayno muxuu ahaayay 6 gobolba ka jirta in muxuu ahaayay abaarta ah in ay runtii ay assessment ku soo sameeyeen goobihii Somaliland oo 1123 goobood ka tirsan kamid ah ay assessment ku soo sameeyeen oo ay gobolba tageen ay soo ogaadeen dadkii kaar ka qaatay amba iska diiwaan geliyay badankooda inaanay joogin waxay noo sheegeen 750 dadkii isdiiwaan geliyay in ay abaar ba'ani ku dhacday oo ay goobahoodii ka hayaameen waxay kale noo sheegeen 717 kamid ahna inay abaartu hayso laakiin muxuu ahaayay abaar dhexe ay hayso oo de laakiin abaartii ay saameysay waxay noo sheegeen gobolka Sool oo kale iyo gobolka Sanaag in gobolka Sool 69% dadkii iska diiwaan geliyay inay hayaameen gobolka Sanaagna 760 inay iyaguna hayaameen gobolka Maroodijeex oo gobolka ugu codka badan ah Somaliland in iyaduna runtii 750 ay saameysay abaartu runtii warbixintaas guud warwar badan ayay leedahay oo markaa oo maanta u baahan dadkeeni in de laga gurmado oo muxuu ahaayay loo gurmado u baahan marka warbixinta ay kulli ay soo bandhigeen dabcan waxay saameynaysaa waxa weeyaan maalintii doorashada saameynaysaa waana runtii muxuu ahaayay de kulankani barbilo uu buu ahaa waxa loo balamay birimaasa dambe hadii la yiraahdo in la sii wado de qaranku xiliyeen lahana laga sii tashado laakiin maanta anaka xisbi ahaan noolama muuqato dadka de shacabka kala hayaamay xoolihii ka leedeen qaarkood Itoobiya galeen qaarkood Puntland galeen ninkii Togdheer joogay maanta uu joogo Lughaya kii Maroodijeex joogayna uu hawd guntii galaan ba Itoobiya galay in maanta dadkaas ee durbaandushooda ku dul garaacno oo ku dul loolano anaka xisbi ahaan loo muuqato marka kale de wixii qaranku yeelayo waa halkeeda kulamaduna saasay u soconayaan insha Allah billaah kariim de commissionkana de iyaga u igman kale inay doorashada wadankan ka qabtaan oo hay'adii runtii u maneed de waanan ku ixtiraaminaa kale de hay'ada madax banaan weeye muxuu ahaayay de madax banaanidooda marka kale arrintan tala qaran bay u baahan tahay marka waanay sii soconaysaa birimaasa damana waa loo balamay de wixii ka soo baxa hadii la yiraahdo waan ogaan doonaa insha Allah billaah kariim runtii horta waxaan doorasho maxaa loo qabtaa maxaynu kaar ku qaadanay marka hore waa in doorasho xor oo xalaal ay dhacdo Soomaa waxaynu u ordaynaa waxa soo kaar oo qayb iminka 7 milyan in ka badan ba ku baxday diiwaan gelintii kaarkii muxuu ahaa qaadashadoodii kaarkana waynu bedelnaa warqad banu qaadanay kaarkan iminka bedelna waxa soo culays waxnu sameeyay in doorasho xor oo xalaal ay dhacdo oo furooskii iyo ku shubashadii iyo muxuu ahaayay aanay aynu ka badbaadnay aynu sameeynaa
de markaa wixii doorashada lagu gaalay hadii inaan dadkii kaarka muxuu ahaay codeynayba aan goobihii joogin de horta maxaa doorasho lagu gaalay way su'aashu marka de wax weeyaan de taas waa arrimaha laga shirayo war maxaa 28 March waxay naga xigo weyn ognahay dadkina goobihii ma joogaan kaarkiina waxaan doonayaa inaan bedelno maxaanu yeelinaa oo talaga shiray laga arrinsanay weeyaan marka runtii intaas u